محمد محمودنا مرادنا لقائه lambarka labaad inay muqaadaraadka balwada nooc kasta ay tahay maandooriyo taaba inaysan banaanayn in la ogaado in waajib waa wax walba oo lagu amro waxa la rabaa inaad fulisaan soo diyaar uma tiidin salaadina dukataan soo diyaar uma tiidin ina ilaahay ka cabsan soo diyaar uma tiidin waxa la dagaalamaysan dad islaamnimo sheeganay oo diin sheeganay haddana diinta shaqo ku lahayn sababta qof muslim dhigiisa la daaday xaraam waa Soomaa mas'uuliyadda idinkeeda saaran oo ciidana idin saaran waxay tahay wax walba oo wanaaga oo in la farina qaadataan man qatalahu qofka ayaga dila fa huwa ajru shahiid ajr shahiid oo iska leeyahay hal ajr oo leeyahay waman qatalahum qofka ay dilaana ajru shahiidayn laba shahiid ajrkooda oo leeyahay waxa keenaya oo la diraa asagii waa dila waana dileen laba ajr oo leeyahay asagu ajirkii ayagu ay dilkiisa ahay oo ay dileen iyo ka asagu dila labadaba waa leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuu sheegay wuxuu yiri nimankaas meeshaad ku aragtaan ku dila fa ina ma laqiituhum faqtuluhum meel alla meeshaad ku aragtaan ku dilo nabiga kaleey salaatu wasalaam bayaal aniga sheekh maahi askari caadi oo ina lamid ahaan ahay laakiin wixii khayr ahay oo diinta ku saabsanay wadaadii ay qusaysay oo waajib ku ah ilaahay ajir ka siiyo ajir Allah ka siiyo waa aaminsaneen ajir ka heli karaan laakiin waxay ajir ku heli karaan ogaada intiina sheekhu inuu soo dhex istaagay waxay galno inuu sameeyay waxa ilaahay in ka reebo inuu sheegay waxa ilaahay in farana waa inuu sheegay markii waxa ilaahay in faro inuu sheegay fulisaan nin ka soo in kamid oo shalay salaad dukanin saacad koor oo hadda salaad dukado ajirkiisa bar kamid oo leeyahay marka